السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا حاسوس قد اختار الكون إذن قرت إذن ديارسو دكتور هبة قبوبال أي كسر ديارسو مجال هرجيسا ما دعدي مر إن دبيله أي بتين أو أتكبق الدبيلها فربدين بول كذا قادو يقول غير الدستي ما دعدينا الشقة اللي جاء إرجي أو أتكبق ذي شقة كوعين إن الدول جاهلين inuu ayaamo fara badan ay timi dukaankaaga yar gurigaaga ka hor dhisay cid boox ka iibsan weyday oo shakigu ku galay oo tiri cidina maanta igama iibsanayso arsaaqad maanta ma helayo ilmahaaga xanuustay oo ayaamo badan bukay oo aad ka shakiday naxariista Ilaahay oo aad tiri ilmahayga weligii ma bogsanayo taariikhda markay 25kii bishii 11 2015 ayaa email bay igu yimi inbox-kayga hotmail-ka email ibaray oo idin baraya inaan naxariista Ilaahay weligeed laga quusanin inuu Ilaahay markasta joogo oo inooga dhow yahay xabril wariid hadduu wax doono wuxuu Ilaahay kun fayakuun inuu inooga naxariis badan yahay hooyooyinkeen iyo aabayaasheen ina dhalay Cabdirasaaq ayaa email-kan ii soo diray wuxuu iri 1988 markuu dagaalku ka dhacay Somaliland ee hadhowtana ayaa isagiyo weerarkiisa ayaa ka baxsaday magaalada Hargeysa oo taasuna ugu wacnayd burburkii badnaayay caadiga magaalada Hargeysa gaaray kunan qof oo dhintay dayuuradii iyo ka baxay ka kacaysa airport-ka Hargeysa mar labaad hadana magaalada rusheynaysa dadka rusheynaysa geedadka ay dadku ku hoos dhuuban jireen markaasay geedadka dayuuradu kaga daba iman jirto ay rusheyn jirtay way baxsadeen dharkoodii iyo kogashan bay ka baxsadeen waxay ka baxsadeen xasuustoodii bay ka carareen iskuulahoodii dharkoodii waradoodii guryahoodii buuxday wax bas ay ka buuxeen ayaamo badan bay soconayeen oo ay lugeynayeen oo haraadka iyo daalka iyo baqdintu ay saaxiibkooda ahay jeerniga iyo rixlada dheer dayuuraduna ay dulduulaysay oo qofka nasiibkiisa noqday ay rusheynayso ay dilaysay markii ayaamo badan ay lugeynayeen oo ay daalkii iyo tacabkii wax badan uu ku sameeyay ay soo gaareen xarunta qaxoontiga ku taali xuduudda Somaliland iyo Ethiopia xarunta qaxoontiga UNHCR ku ay sameysay ee qaxoontigu markaas lagu soo dhaweynayay ayaa wuxuu noqday nasiibkiisu inuu ku soo hagaago Camp Abakar buu ku soo hagaagay isagoo hooyadii ka lumay markuu kaamka uu soo gaaray ayaa habeenkii ugu horeeyay kaamka uu saxday habeen aad u culus oo aad u xanuun kulul buu ahaa wuxuu ka sheekeynayay oo iri inuu roobku soo da'ay oo daal badan iyo tacab badan uu gaaray dhulku seexday oo roobkuna ku soo da'ay uu islaaw daal daraadeed wuxuu waayay khaymad uu ku seexdo markuu seexday iyo subaxdii soo kacay isagoo qoyan markaas markuu isri istaag ayuu arkay dhinaca midigta isagoo aana istaagi karin ama ku istaagi karin lugtiisii buu jiiday wuxuu arkay lugtiisii kaboobiyoonayso oo culus oo aanu dhaqaajin karin si adag buu u socday isagoo lugtiisu meeytay uu jiidayo hooyadii buu tagay hooyadii buu helay hooyadii waxay ku tiri maxaa lugta ka helay wuxuu ku yiri waan ku seexday dhulka qabow baan ku seexday roobna wuu soo da'ay markaa lugtayda imanka way kaboobiyoonaysaa kuma socon karo waxay geysay hooyadii kaam lagu talagalay ragii dhaawac u gaaray SNMT mujaahidiintii dagaalka ka qayb galay markaas kaambigaas ama khaymadaas ay dadka dhaawaca ay jiifeen ayaa ilmihii yaraa la geeyay wuxuu ka sheekeynaya xasuusu ka qabo oo ka xasuusan yahay kaamkaas ama meeshaas dadka dhaawac ay hurdeen ayaa wuxuu ku leeyahay dad badan baa dhulka hurday qaarana sariiro bir ay ku jiifeen qalab fara badan muu oolin dawooyin badan may oolin wax yaro basiid baa yaalay dadku way wada ragga meesha wada jooga way taahayaan qaar badan buu dhiigu jirkoodii uu qariyay nabaro badan baa jirkooda ku yaala qaar xabada laga soo saarayo oo qaylinaya urta dhiigo meel kasta ka uraysa wuxuu ku leeyahay baqdin غير العادي ayaan ku noolaa sidii inaan filmadan baqdinta aan daawanayo markaas wuxuu ku leeyahay raggan kaamka jooga ama askartan ay markaas intuu imaadaan ay waxay weydiiyaan ku ilaahan ma dagaalkaad ka qayb gashay halkuu nabarku kugu dhacay dhiig kugu ma yaalo sidee weeyaan markaas wuxuu ku leeyahay inankii yaraa ayaa wuxuu ku leeyahay 6 bilood ayaan sariirka ku jiifay anigoo paralysis oo dhinaca midigtoodan ay meeyta oo baqtito aan dareemaynin inaan sariirta ka koocan suuliga tago waxay ahayd cadaab bay ahayd hadhowto waxay gaareen heer reerkiisu inay uga qodaan hog yar looga hoos qodo sariirta sidoo suuliga uga maarmo wuxuu ku leeyahay 6 bilood ayaa timihii igu baxeen ilkahayga aanan cadayn aanan waxba aanan cuni jiro oo aan qalalo aan dhuubtay niyad badan baan ku noolaa adduunku wuu madoobaaday oo huntuuga may qalalin habeen kasta waan ooyi jiro ilaahay baan bari jiray waxaan markasta ii muuqatay anigu noloshayda sidaa ku dhamaystay oo faaligaas weligii la noolaanay oo mustaqbalkayga noloshayda halka ku baabaaday wahankaygi waxaan ku riyoonay weligii anigu aan gaarin anigu waaqac arkaya iyo dhibaatada jirta dagaalka xanuunka
baqdinta baahinta meeshan ku noolahay ragga meesha igula nool dhibaataysan habeen kasta midu dhimanayo wadku imanayo waanuguna aan sugayo waqtigayga ayaa oo lugtidina maalin kasta maalinta kasii dambaysa anigu arkay iyadoo sii yaraanaysa ugu wacantay xarakad la-aanta iyo socod la-aanta ayaa hadhowtana laakiin rajada ilaahay ku qabay maalin quraman ilaawin مؤمن بنكو أها إلهي نحريستيسا يقولوا إن حريسنايو وهدو وحدانو أرانا يكون فيكون ما ننكس إلهي بنبري جرو أن دعيسان جري إلهي جان يا ربي جان سمد كل قاضي بلا عمد ابن آدم كأحسن تصويري أحسن تقويم وأبوري لح بلود كبعدي يا قلوب دختريال أيا وحي إمادين كان بكي حردي بإمادين مركي إمادين أينا كي يلا أركان مركي أركان بالدواب الأقران دواب مقعد إلهي مكو حسوسين وحولي مقعد وحلان يوروبيين وحيان فيتامين بي كومبلكس ayaa hadhowtana marka dhowr irbadood laga siiyay dawadaas ayaa hadhowtana lugtiisa baa nolosha u soo noqotay wuxuu arkay isagoo istaagaya ka bacdin waa buu socday hadhowtana waa buu orday go'aan buu qaatay Cabdirasaaq inaanu weligii salaada aanu ka tagin warakacad noloshiisa inaanay dhaafin sidii buu tukadaa imka Cabdirasaaq nolol fiican buu ku nool yahay dalalka Yurub kamid ayuu ku nool yahay isaga qoyskiisa noloshiisa aad buu fiican waa stable wuxuu riman ilaawin waxa soo maray laakiin waxa inoo qotay xasuus weligii aan ilaaweyn وتاسو يحسوسينيسو مركزا إنو جرو إله أما رب كبير رحيم واحد عطوف مركزا أي دباتدو أي أدكا أي بدتو وشكيقو إيقالو وضنقو بطو ويتحامها نلوشو أي بطان مركزا وحا حسوستا إنو رب واحد أوجرو أدو وحدانو وأرنايو كن فيكون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.